kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka warbaahinta Soomaali Press TV qodobada ku dhaw doontaana hadduu rabidmo waxa ka mid noqonayo kii ugu dambeeyay xogta qarsoon ee safar ana la sii shaacin oo agaasimaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad uu baxay dalka Itoobiya iyo macluumaadii laga helay dawladda Itoobiya u yeertay taliyaha sirdoonka Soomaaliya haddaba maxay tahay arinta ay ka wada hadlayaan sirdoonka Itoobiya iyo taliyaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad waxaan idin soo gudbin doonaa macluumaad dheeraad ah oo laga helayo qorshaha safarka Mahad Maxamed Salaad uu ku tagay dalka Itoobiya xilli horaanta toddobaadkan ay magaalada Muqdisho yimaadeen xubno ka tirsan sirdoonka dawladda Itoobiya wararkii ugu dambeeyay xogaha sheegayo in Itoobiya u yeertay Mahad Maxamed Salaad iyo waxa ay kala hadlayso ayaan idin soo baahin doonaa qodobada kale oo ku daawo doontaan barnaamijyadeedkana waxa ka mid noqonaya maamul goboleedyada dalka oo loo ansixiyo qodobo ka diiday madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxay tahay qodobada loo ansixiyay ee uu ka diiday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wararkeena ayaa ku daawo doontaan qodobada kale oo ku daawo doontaan barnaamijyadeedkana waxa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyay dagaalkii ka dhacay Wabxo iyo xaaladda goobihii lagu dagaalamay sida ay tahay in ka badan 100 maleeshiyaad oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo meel qura lagu laayay iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo siyaabooyin kala duwan kaga hadlay xogihii ugu dambeeyay dagaalada Wabxo iyo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo kaabiga ku haya Ceelbuur ayanu saakay faahfaahinadii kaga heynaa xaaladaha goobihii lagu dagaalamay kadib duqeymo iyo dagaal toos ah dhacay qodobada kale tan waxa ka mid noqonaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo soo gabagabeeyay safarkii uu ku joogay dalka Masar haddaba xubnaha uu la kulmay inta uu ku sugnaa dalka Masar ku gacan saaray dalabyadii oo hordhigay iyo macluumaadka ku gudaaman safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku joogay dalka Masar ee la soo gabagabeeyay iyo madaxweynaha oo dalka dib ugu soo noqday ayaanu xogay idin kaga helnaa macluumaadadaas iyo kuwa kale oo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin xildhibaan ku sugan furinta hore ee dagaalka oo sheegay arin la yaab leh oo ay Al-Shabaab ay bilaabeen xilli dagaalada ka soconaya gobolada dalka ay sii xoogeysteen waayidii ugu dambeeyay ayaan idin soo baahin doonaa asaatee daawadayaal intaan ugu gudagelin dhammaantiinba waxaan idin codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan faafinta wararkan isla markaasina la wadaagtaan saaxiibadiina kala mahadsanidin aan ku bilaabo agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Nisa Mahad Maxamed Salaad ayaa safar qarsoodi ah oo aan la sii shaacin waxa uu ambabaxay dalka dibadiisa isagoo ku tagay dalka Itoobiya wafdi uu hogaaminayo taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Nisa Mahad Maxamed Salaad ayaa gelinkii dambe ee shalay gaaray dalka Itoobiya wafdiga Mahad Salaad ayaa halkaasi waxa ku soo dhaweeyay dhigiisa dalka Itoobiya waxaana uu safarkan ku soo aaday iyadoo maalmo kadib markii magaalada Muqdisho yimaadeen xubnuhu ka mid yahay agaasimo ku-xigeenka hay'adda sirdoonka Itoobiya agaasimaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa maalmaha soo socdo ku sugnaan doona magaaladaas Aaba kadib markii casuumaad uu ka helay dhigiisa waddanka Itoobiya labada agaasimo ayaa la sheegay inay ka wada hadli doonaan kulamo muhiim ah oo labada dhan ay kaga wada xaajoon doonaan iskaashiga iyo wada shaqeynta hay'adaha sirdoonka Soomaaliya iyo Itoobiya macluumaad qaar ayaa sheegay in dawladda Itoobiya ay doonayso inay macluumaad ay ka ogaato arrimo dhowr ah oo ku gidaaman eedo loo jeedinayay horaantan agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Nisa Mahad Maxamed Salaad kuwaasi oo salka ku hayo sida Mahad Salaad ugu lug lahaa dhawaan dagaaladii ka dhacay xuduudda Itoobiya oo ay dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab gudaha ugu galeen dalka Itoobiya Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa la sheegay in si wada jir ah ay haatan u wajahayaan qatarta kooxaha xagjirka ee Al-Shabaab iyo Daesh iyada oo haatan la filayo in Mahad Maxamed Salaad kulamada uu la yeelanayo sirdoonka Itoobiya ay qiimeyn ku sameyn doonaan xiriirka kala dhaxeeya kooxda argagixisada ee Al-Shabaab iyada oo ay xusid mudan tahay in agaasimihii hore ee hay'adda sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad uu ku eedeeyay in uu xiriir toos ah la leeyahay ama shaqaale u yahay ururka Al-Shabaab madaxda labada dawladood ayaa hore u ballan qaaday inay yeelan doonaan cilaaqaad dhinacyo badan leh kuwaasi uu ku aadan iskaashi dhinacyada amniga iyo iska dhaxgalka labada dawladood ee diriska ah
mahad maxamed salaad ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay dalka Itoobiya waxaana uu sameeyay arrin aan looga baran sirdoonka isaga oo sawiro iyo weliba muuqaalo laga soo duway muujinayaan in mahad maxamed salaad uu la kulmayo xubno sarsare oo ka tirsan sirdoonka Itoobiya agaasimihii hore ee hadda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa marar kala duwan sheegay inaysan muhiimad gaar ah lahayn in madaxda sirdoonku ay kaamiradaha ka soo muuqdaan waxaana uu sheegay in taasi ay ayaan daro ku tahay hoggaanka sirdoonka marka loo eego dadka khibradda u leh dhinaca sirdoonka uu sheegay inaysan agtooda muhiim ay ka ahayn ka soo muuqashada kaamirada balse mahad maxamed salaad ayaa tan iyo markii uu la wareegay sirdoonka Soomaaliya in yar oo kooban uu ku daysanayay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kadib hadda waxa uu bilaabay inuu soo bandhigo oo uu kaamirada ka soo muuqdo geeska kale tan daawadayaal haddii aanu fiirino wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka soconaya gobolada Soomaaliya wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ayaa sheegayo in saacadii la soo dhaafay xaaladaha deegaanadii lagu dagaalamay ay degan tahay kadib dagaalo culus oo galinkii dambe ee shalay ka dhacay deegaanka Ceelgorof oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay gudaha u galeen dagaalkan ayaa la sheegay inuu ka dambeeyay kadib markii ciidamada beesha Mursada ay ku safrayeen deegaanka Ceelgorof ay wadada u galeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab sida ay sheegeen saraakiil howlgal iyo howlgalkan wararka ayaa tilmaamayeen ciidamadu ay ku guuleysteen dagaalkan ka dhacay galinkii dambe ee shalay deegaanka Ceelgorof laguna jabiyay kooxda Al-Shabaab dhinaca kale ciidamada ayaa si buuxda uga wareegay wabxo oo ay gudaha u galeen xilli saacadii la soo dhaafay ay joogeen duleedka deegaankaasi deegaanka wabxo oo caan ku ah marka la eego luubaanta la shito iyo waliba sidoo kale tan loo arko inay il dhaqaale oo ah dhaqaalaha ugu badan ee kooxda qawaariita ay ka helaan ayaa la sheegay in ciidamadu ay ku guuleysteen gacanta inay ku dhigaan walow ay xusud mudan tahay in ka badan 10 sano ay kooxda qawaariita ee Al-Shabaab maamulayeen deegaankaasi wabxa ayaa ah meel muhiim u ah duulaanka lagu xureynayo Ceelbuur waxaana hoos yimaada tuulooyin badan oo ay ka mid yihiin Warxoolo Warar Dhuumaale iyo waliba deegaano kale oo ay Al-Shabaab haatan marka la eego fariisimo waaweyn ay ka dhigteen beesha Mursada ayaa waxay sheegeen in haatan kadib ay u dhaqaaqi doonaan Ceelbuur oo ka mid ah meelaha ay haatan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ku xoog yihiin marka la eego Soomaaliya geeska kale tan daawadayaal haddii aanu fiirino maamul goboleedyada dalka ayaa loo ogolaaday qodobo uu ka diiday madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shir ku soo gabagaboobay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka dowladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu heshiiyay qodobo muran weyn uu ka taagan yahay kuwaasi oo ka hor yimid ismarwaan uu ka taagnaa dowladii uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamul goboleedyada waqtigaasi jiray shirkan ayaa waxay isugu yimaadeen wasaaradaha cadaaladda dowladda federaalka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka waxaana laga soo saaray 10 qodob kadib maalmo uu shir uga socday magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya sida ogaatay warbaahinta Somaliweyn Production shirkan ayaa waxa si weyn looga hadlayay in ay xubnaha ay ku yeeshaan guddiga madaxa bannaan ee dib-u-eegista dastuurka qodobada ugu muhiimsan ee soo jiitay dareenka dadka la socday geedi socodka dowladnimada Soomaaliya ayaa waxa ay tahay in dowladda goboleedyada loo ogolaaday inay xubno ay ku yeeshaan guddiga madaxa bannaan ee dib-u-eegista dastuurka iyo waliba guddiga dib-u-eegista dastuurka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee isku darafka dowladii hore uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay dowlad qowad badan ayaa dowlad goboleedyada ka hor istaagtay in ay wax kaalina ay ku yeeshaan guddiyada arintaasi oo keentay in su'aalo la geliyo sharcinimada ama sharciga uu ogolaanayo arinkaasi waxaana ay soo saareen guddiyadani mar haddii aysan ogolaansho ka haysan dowlad goboleedyada inay noqon karto calqalad ku noqon karta horutubinta howlaha guddiyadan hor yaala iyadoo ay xusud mudan tahay in dowladii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay arrimahaasi ay ka biyadiiday qorshayaal oo ay wadeen dowlad goboleedyada dalka kuwaas oo lagu weeqayo awoodda dowladda federaalka ee Soomaaliya shirka magaalada Baydhabo ayaa dowlad goboleedyada laga codsaday inay si dhaqso leh u soo gudbiyaan xubnihii uga mid noqon lahaa guddiyada labada ah iyada oo shirka xigana lagu qaban doono magaalada Baydhabo iyadoo laga arisan doono guddiyadani isla shirkan ayaa waxa la sheegay in lagu ansixiyay in golaha wada tashiga qaran si degdeg ah lagu gudbiyo qodobada muhiimka ah ee la doonayo in dastuurka laga bedelo ama dib u eegis lagu sameeyo ama kuwa lagu darayo madaxda dowladda goboleedyada ayaa u muuqata haatan in sida ay doonaan ay ka yeelanayaan arrimaha la xiriira kuwa waaweyn oo ay hortubinteedu leedahay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyada oo awoodda dowladuna ay u muuqato inay la wareegeen dowladda goboleedyada
dowladii uu hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dhammaan meesha ka saartay qodobada ka dhigi kara in dowladda federaalka ee Soomaaliya awoodoodu ay la wareegaan dowlad goboleedyada. ugu dambeyntiina madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo gabagabeeyay safarkii uu ku joogay dalka Masar. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo gabagabeeyay safar shaqo oo uu ku joogay dalka Masar waxaana uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda iyo difaaca jamhuuriyadda Ireland mudane Simon Coveney. madaxweynaha ayaa kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda dalka Ireland labada dal iyo iskaashiga dhinac walba oo ay yeelanayaan. wasiirka difaaca Ireland ayaa sidoo kale waxa ay isla garteen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in dowladdiisu ay ka caawiso la dagaalanka argagixisada iyo duruufaha nololeed ee adag ee Soomaaliya ka jiro. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay halganka wadajirka ah ee shacabka iyo dowladnimada Soomaaliya ay maanta ugu jiraan dadaalka ay ku doonayaan in dalka ay kaga xoreeyaan kooxaha qawaariijta ee Al-Shabaab. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa ee ku sugnaa dalka Masar ayaa ka qayb galay shirka cimilada adduunka waxaana ay soo gabagabeeyeen shirkaasi iyaga oo dalka dib ugu soo laabtay. gudaanada wadiyaaltaas ayaa ku soo meeraya barnaamijyada kala socotay warbaahinta Soomaaliya Production tan iyo kulatay dambe nabad warsan.